بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي. ما أنت وحربة إنا وحير إسدول إستاغو ورنتي أو أركو إني الظلم تهي صومالي ذا حيابا بدنو وحي سميان ظلمي ومركا أي إسكولا سحنيهين إياغو إسكولا سحنيهين لكن ظلم هدي لوقف أي سقبتان ولوقف أي مرمان kasoo qaad walaasha iyo walaalka ayaa dagaasheen col baa noqoteen inaabtida ama inaadeerta ama inaadeerka kaa doontaba ayaa dagaasheen muddo ayaad waxaad ahaydeen col muddo markaad col ahaydeen maalin maalmaha ka mid ah ayaa qof reerkiina ka mid ah uu ku yiri horta labadiinaan walaalaha ah ee mar walba isdagaalaya maxaa idinka dhaxeeya ama walaalka waxa yacni xaggaaga waxba kamaad soo qaadinba ama waxaad tiri waxaas iyo waxaas waa idin heshiisiinaynaa waa la idin imaana arrintiina tol baa galaya gartaa galaysa sidaanay ma fiicna futuud baa lagu yiri okay baa tiri tolkaaga markay isku yimaadeen oo meel yimaadeen markaana walaalka ama adiga labadiina qof ayaa afar jeebla ah oo jeebka u buuxaa labadiina midka ka midana waxba ma haysto ama qof iska yacni markaas adiga xoogay noloshaada ka nolol hooseeyo reerkiina siday ula dhaqmaan reerka adiga ka dhalatay ama jilibkiina ama ilma adeerada ama dadkaaga siday u dhaqmaan marka aad walaalaha yacni ay yihiin ama reerka dhexdooda ama adigu aad ka jeeb weyn tahay ama walaalkaa kaa jeeb weyn yahay sida ay dadkiina ay faamilkaaga yacni cadaalad darrada ay marna adiga kuu qaadaan marna adiga ay kaa qaadaan reetolkaaga fiiri marka qof kale isdagaashaan sida reetolkaagu ay uga falceliyaanna fiiri qofkii walaalka ahay haddaad adiga isdagaashaan oo adigu aad tahay qofka markaas afar jeeblaha tolkaagu xaqdarra iyo been ayay kuu qaadaan iyo gar eexeed ayay kuu qaadaan because afar jeeblaata haddii qofka kaleeto uu yahay qof afar jeebla ahna oo jeebka maalintaas kaa buuran yahana aday xaqaaga ku duudsiiyaan haddaad qof kale isdagaashaana baltan aad dhameeye fiirsada marka qofka walaalka aad isdagaashaan oo tolkiina iyo ilma adeerada iyo dadkii aad ehelada iyo qaraabada ahaydeen ha ka sugin ilaa maa mid ilaahay u naxariistay oo ilaahay uu baray sharciga islaamka iyo diinta islaamka hadduusan halkaas nin caalima uusan jooginin oo shiiq ah ama qof cadaaladda u dhow oo ilaahay ka cabsanayo uusan jirinin reetolkaagu waxay ku duudsiiyaan xaqaagii ayay ku duudsiinayaan ama adiga ayay xaqdarro kuu qaadaan ama haddaad adiga gar lehed gartaada ayay ku duudsiiyaan hadhowna ayagoo 4 qaybood ayay ku soo wacaan ama 5 qaybood oo kala socota hadda wixii dhacay waxba ha u arkin intay adiga gardarrada ku saaraan afkaaga kaa qabtaan xaqaaga kuu diidaan ku daboolaan in lee qadada haddaad adiga bixidayna adiga qofkii kaleetay afka ka qabtaan hadduu qofkaasu qadada bixiyena qofkii qadada bixiyey ayay adigay afka kaa qabanayaan way xaqaagii way ku duudsiinayaan bariiskooday cunaan hilibkooday cunaan meeshaystay war ina hebelka waran iyo ina heblaaye ka waran iyo hadda waayahan laysma arkin iyo waa la kala baaday iyo been iyo futuud iyo naxli iyo najaas bay halkaa ku kala shubaan waa kuwii dadkuu xigay ya halkaa waxay ku kala shubaan naxli iyo najaas bay halkaa ku kala shubaan waxay hadhowoo kale hilfooyinkii adiga aad ilma adeerka iyo qaraabada iyo tolka ahaydeen
kusoo wacaan waxay ku yidhahdaa hadda meesha maxaad noogu yeertay meesha waad ku ceebowday ceeb baa kaa raacday meesha falxumaa kaa raacday waa xaqaagii lagu duudsiiyey waa tii lagu yiri ma hadli kartid waa tii afka lagaa qabtay waa tii lagu yiri waxba ma sheegi kartid annagaa kaa qabanay gardarro aadan lahayna dhabarkaa laguu saaray mid kale soo booda waxay tiri hadda hebel waxaa waaye cidduu saas yeela ama heblaaye cidday saas yeeshaa hadda adi waxaa waaye anigii asaga businessa iskugu keeni jira ama aniga ayada business baa iskugu kaana jira lalama hadli karo lalama yeeli karo waxaa waaye xoogaay waxaa waaye way caroonaysaa ama wuu caroonayaa ama kanuu noqonayaa marka adiga in lagaa gardaran yahay sheekada meesha way ka muuqatahay usha adiga waxaa laguu saaray inaad iska samirto ma jirto waxa la yiraahdo cadaalad ayaan wax idinkugu qaybinayna haatiye ka tahay sugid cadaalad darro ba cidiinay ka bilaabataa mid kale wuxuu ku yidhi heblaayo inaysan dabeecad lahayn waan ogahay hebel inuusan dabeecad lahayn waan ogahay marka adigaa xoogaa ka dabeecad fiican oo ka dabeecad deganin adigaa gardarrada lagu saaray folleesh xaqay aawe cadaalad darraduba waxay ka bilaabataa jufada aad ka dhalatay iyo guriga aad ka dhalatay ayay cadaalad darradu ka bilaabataaba maxaa kuu soo haray qof kan kula dhashay waxa uu kugu sameeyey waxa nuskiisa aan dhammayn aa qof cid kaleetaa kugu sameeyey oodna isku qabiil ahayn reerkiinnii ayagoo wada dudaayo oo wada dacwo iyo burar iyo dhagax iyo faas iyo waran watay imaanayaan markaasi waxay u jilba jabsanayaan in la yiraahdo ha wiilkeennii ama gabadheennii aa la maagay ama intaan iyo intaana naga maqan calashaan qofkaas isku qabiil ma tihiin calashaan isku reer ma tihiin kii adiga ina adeerkaa ahay ee xaqaaga ku duudsiiyey kii ina abtiga ahay ee xaqaaga ku duusiyey kii hooyada iyo aabbahaa dhaleen ee xaqaaga ku duusiyey kii aabbahaa dhalay ee xaqaaga ku duudsiiyey kii dulumka kugu sameeyey ee adiga kula dhashay waa lagaaga eexanaya waxaa lagaaga eexanayana waxa ay tahay waa sandareertii fi dunya iyo bariiska meesha lagu cunay cadaaladda marka xagee ka imaanaysa ficilka waxaa la celi og yahay marka aad qof kale ismaagtaan marka aad reerka uu qof kaleeta reer yahay waa loo booteeyaa xoolumariyadaa lasoo bixiyaa waa lala dagaalaa waxaa loo sheegaa inays waxaani wax soconaya aysan ahayn adugu qof inaad tahay qof yacni la dulmiyey kii walaalkaana waa ku dulmiyey kanna wax yaraa idin dhex maray soomaali ilaa ay ilaahay ka cabsadaan oo qof walba xaqiisa iyo cadaaladiisa ay u soo noqdaan weligoodii allahood guul iyo nabadgelyo ma helayaan cadaaladdu waa inay ka bilaabataa cadaaladdu waa inay ka bilaabataa qoyskaaga cadaaladdu waa inaad qofka dad ku xiga adu cadaalad fashaa cadaaladda waa inay ka bilaabataa gurigaaga waxaa idin leeyahay allah subxaanahu watacaala ha laga cabsado oo dadka ehelka oo la dulminayo ha la daayo dadka ehelka ku ah oo aad xumaynayso ka joog marqaatiga beenta oo aad furaysana ka joog maalin mataqaanaa aadan marqaati beena furi dooninin ayaa jooga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu